Suldaan Xuseen Cali Duule iyo qaar ka mid ah oqaasha odayaasha deegaanada degmooyinka Lughaya iyo Seylac oo iyagu ka hadlay arrimo dhinacyo kala duwan taabanayo oo ay ugu horeyso 6 goobood ee ay muddaba xayiraada ku hayso xukuumadda Somaliland iyagoona sheegay in ay boog ku noqotay 6 goobood ee muddaba xayiraada ku hayso xukuumadda Somaliland uguna baaqay xukuumadda Somaliland inay xaqooda u soo celiso muwaadiniinta ku dhaqan deegaanadaasi ay muddaba xayiraada ku hayso xukuumadda Somaliland iyagoona ugu baaqay inay xaqooda u soo celiso si ay codkooda u dhiibtaan sida ummadda kale ku nool Somaliland codkooda ay u dhiibanayaan isla markaasna ugu codeeyaan cidii ay ka arkaan danahooga sidoo kale waxa ay mahad celin balaaran u soo jeediyeen madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gelle iyagoona uga mahad celiyay gurmadkii uu ka geystay abaarihii ka dhacay deegaanada degmooyinka Lughaya iyo Seylac iyagoona sidoo kalena mar kale ugu baaqay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gelle inuu wax kala qabto baahiyaadka kala duwan ee ku baahsan degmooyinka Lughaya iyo Seylac ugu horreyntina waxa isagoo halkaasi ka hadlay Suldaan Xuseen Cali Duule waan ku qabanay degmada Lughaya caasimadeeda qodobka koobaad anagu duqeyda beesha xeebahan u badan aan baxiisay beesha degta halkan waxa uu dana isku xid walaalnimo wadajir iyo midnimo cidda carqalad ku keenaysa ee kala dilaysa dadnimada walaalka inay si kaliya iskaga aragtaa quman cidda aflagaadeynaysa awlal amarka amba wadan jaarkeena amba ka aan deganna inuu taraasulaad ka muujiyaa taan quman madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo naga caawiya adeega bulshada abaaraha masaa'ibaha dabiiciga waa u mahadnaqaynaa goobaha 6 xidhnaa muddada badan ragga walaalaha iyo Sacad Muuse ay awoodda duldhigeenay arrin iyo adduunba ku bixiyeen ka daayaan leenahay dalka ilaahay nimba meel buu dhigay halka reer baadaga taariikhday ku jirtaa hadii anagoo gudidii qabanqaabada isku xirka beesha Cabdiraxmaan Ceeleeye ahna gudoomiyihiisii magacayga waxa la yiraahdaa Roble Yuusuf Barre waxa weeye waa sida uu sheegay suldaanku kulli waxaan ku soo jirnay in badan dadaal awaamirta dalka iyo dadkaba iyo wixii ilaahay wada dhaliye ee isku magac ka dhigay sidaan isku xiri lahayn sidaan u midayn lahayn alxamdulillah maanta heer fiican bay maraysaa dadku waa walaal waxaan doonayaa inaan sii fidino daris wadaag ah kuwa dalka ilaahay wada degannahay ilaa heer maamul oo dawlo inaan sii wada nabadgelyada iyo midnimada sidaa baan jecel lahay waa kow waxaan leenahay markii uu ka dhawaajay goobaha 6 goobood ee xidhan way taabatay dadkii muwaadinka ahaa ee deegaankaas ilaahay ku abuuray halka ilaa muddo badan baa lagu soo hadlayay haddan imika shirarkan shirar baa ka horeeyay gudidii goobahaas oo dhan ay ka hadlaysay annaguna gudidii waxaan nahay Cabdiraxmaan Ceeleeye ee guud waan kabaynaa taana waan kabaynaa waxaan leenahay maamulka Somaliland annaga oo in badan baa ku diraynay 6 goobood ee xidhan dad baa ilaahay ku abuuray oo degan reer waliba deegaan buu leeyahay gobol lagu yaqaan uu leeyahay akatana shusho dadka muwaadinka ah u dhashayna imika foodka soo socda waayna laga footayo weeyaan dadka waajibkooga uu ku guto weeyaan taa waxaan u diraynaa Somaliland fadeexad iyo ceeb lagama geeyo waayahay tolkana waxaan leenahay beesha Ciise meel kasta ay joogto waa walaalkayo waa walaal waa mid
maanta in badan baan ku soo dadaalaynay walaalnimada midnimada isku xidhka beelaha ilaa ma 2 sanadood oo hore waan ka soo shaqaynay heer fiican bay maanta maraysaa kullay wuu jiraa mid xanuun ah oo meelaha ka soo baxa wuu jiraa qotolka dhabarkiisa kala jiida qabyaaladii waxa shilmo la socda waa jiraa ka waxaan leenahay yaa ilaahay soo yalla ilaahay loo saadiyo laakiin waxaan maanta sheegaynaa ku rajo weynaa in maanta meel fiican loo marayso waxaan leenahay tolkay waxaan leenahay anaga oo joogno degmadii Lughayaad reerka halka taagan beesha Ciise kullay xagga muuqaalka markaad u eegto waxa ka muuqata yar falxumo dadku wuxuu ahaa dadkii cimiladiisu ay ahayd xoolo dhaqato wixii ay ku noolay cimiladooda ay taqaanay markii uu ka yimid ee waqtigu dhaafiyay halkii ilaahay ku abuuray bay ku soo noqdeen way degeen heer fiican baa la mariyaa maanta oo walad waxbay barataa laakiin muuqaal ahaan horumar ummadda way ka takoranta waxaan leenahay beesha Ciise amba qurbaha joogto amba jamhuuriyadda Jabuuti waxa weeyaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa weey waa madaxweyne bulsho waa madaxweyne ummadeed anagu ma sheegayna kaliya sheeganayna wax badan oo hadaa la kuuri awaamirta maanta abaaraha dhibaatooyinka dalka iyo dibadooyin badan ka caawiyo waa daf uu maadsan yahay uu ku mudan yahay waxaan leenahay hal laga biyo ummadda lagu daro dadka ka mid ahaadaan tolkay waxaan leenahay meel kasta joogo annagu qabiil sheegi mayno qolo yar sheegi mayno annagu beesha caalamka tolkay oo amba qurbaha joogo amba Jabuuti ha joogo beesh kasta joogo waxaan leenahay hoos loo eego falxumada ka takooriyay dadka laga biyo leenahay maxay de waxa weey falxumadu dadku wuxuu ahaa dad reer miyi dad xoolo dhaqato ah wuxuu yimid magaaladii degmadii Lughayaad ku jooga 6 sanadood buu degan yahay bayac mushtar kuma leh bayac mushtar muuqdo oo kuma leh bil hagaagsan oo aqal oo ka dhisan ma jirto يا تمر لام بد صوبت تولكينا إلى ما تبت مقدر بد بعد مدة مرة كاركود قال يروح أجر مركب مرقوق وهرية حلا لقدروا حول حول مكجوجة قارد وحمل شغيل سيدي بيرتي اللي جرى يحده وريكا يركع عدبا كحرت لنا أنا وهذا المورد تلك يا رشيقنا أنا تلك يو باش عيسى رشيقنا دولة دار رشيقنا مدحوينا هيك رشيقنا لبعض هالك الله وحويا ويحل لو ترك بعيد هرت إلى إيمان تبولي كرا قنت إلى إيمان تبولي كرت وصل الله ديجان لنا وحاقوي حسبي ذا سومال الليل وحوينا أنا ومنا ما تعاي منا أمان منه تي أنكارنا أنا قدرها هيك اللي أنكارنا يا وبرجور ذيلا تاسنا واسدا ويان ديار ورناي مرات كتب لين ما كان ماشي صوتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أرتع جوا على اللي بايري حارة حجال كيف من عبد الحاب حاب محل باب هذا اليوم هذي والله حابي والله لكن فرض العين كم مرين نادي له وفوق أصبرنا ورتوحناي بقيتي سيدا شيء هوري لو شيء بقيتي غير عول ودنيد إلا عبد الرحمن علي إلا عبد الرحمن علي ودنيد بانا
sidoo odayaashii horeba sheegeen dee waxaan leenahay annagu dan maahine iyo dhabaran kabna maahine haa dhooqaha naga suginaan leenahay dadka iyo inta maaragtay aan odayaasha u nahay iyo inta kale ee soo raacdaba wax dhooqaday dhahaan naga sugina haddii ammaan ay waxtaray intii hore soo ammaantay haa odayaashaydii hore way soo ammaaneen dawladda ee Soomaaliyeed ee ka mid nahay waxaan ka codsanaynaa haa oon aad iyo aad uga codsanaynaa yaraysiga ha naga dayso oo hana maqasho kelmadahaan ku hadlaynaa hana maqasho waxaan ka codsanaynana ha noo aqbasho haa iyadaa madaxweynaha iyagii oo iyadaa maaragtaa ku dhex nooda sababtoo sidaa baan ugu dhex nooda naga hana maqasho markaan leenahay waa goobaha imaka odayaashu ka hadleen oo kale yaa caloosheeda wada bariday oo cudur maaragtay joogaana nagu noqoto annaga aqbasho wixii aan maaragtay ka codsanayna ee aan dawladdeeda ka codsanayna haa dawladda Soomaaliyeed wey waxaan la hadlay haa waxaan leeyahay dawladda jaarka iyo ee halkaa ee maaragtay Ismaaciil Cumar Geela aabbaha ka yahay dee maxaaba ka wanaag waxaan hayn oo ka sheegnay waaba xaaraanba aflagaada waxaan maaragtay ku naanana waaba xaaraanba ninka ka sheegana anu waxaan leeyahay ambaan habaarna baan dilaba gacanteena baa ku dhinto amba aan habaar una ku dilaadana gacan u qaad weynana maxaaban u sheeganayna waayo waa takliyo he waa takliya gurmad iyo dhiig iyo gargaar iyo nafta maanta xitaa haddaan awrkayga wax soo aan u diranayna xagga buu kacay xagga sare uma kaco boorama waxba uma doonano hargeysa waxba uma safra xaggaa baan u kacnaa kolkaa mani baan gurigiisa yaa caayo naftiisa inkaar ku ridi balaayo qaba kaasi allah inaga qaadan leena kaaflagaadaynay haa waxaan leenahay sida odayaashii hore way sheegeen xisbiyada dee kii ay dan inoogu jirtaan iska dhex aan wax unbu annagu jin ahaadee kii wax loo sido unbaa walaalkaya ilaahay baa idin raxmadeed lehe ishii raxmaddii eed nagu soo dayaysa noo kordhi sababtoo ah abaaraha iyo itaalxumo boqolkiiba dee imaka annagu waxaan leenahay ducadaan diraynaa yaa ducadaasaa wax ugu taalle haa ishii awal baad nagu soo eegaysay ha noo biiriyo waa qarannimada Soomaaliyeed ha noolaataan ku ta Jabuutina ha noolaato baan ku kabayaa in yar yaan ku kabayaa horta shirku Cabdiraxmaan Ceeleeye iyo ku magacaaban yahay Cabdiraxmaan Ceeleeye ha noolaado midnimada reer cawlkuna ha noolaado cawl inuu kala tagay ninka moodayo cawl uu midaysan yahay ma haysna uu jiri jiray ragga dabadiisa ka hadla kaasina uu jiri jiray cawla waa mid waa gacan kaliyaad kaasi waa qodobka aan ka hadlayo waa lixda goobood uu ku badnaa hadalkayaga hadday duqayti tahay hadday dhalinyarada tahay hadday hooyooyinka tahay taasi way badnayd waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha siiraanyo waxaan ka codsanaynaa madaxweyne kolka habacnay allow habac roob dadkuba helo noo habacsi buu ninka geeli shubay halkii u dambaysay taaganta dhawaqayaga soo daymo dadkuna waa dadkii aad madaxweynaha u ahayd dalkuna waa dalkii ay deganaayeen jawaab degdegan halkaa ka sugaynaa halkaas jawaab degdega ayaan ka sugaynaa dadkaaguna ka sugaya dawladda Soomaaliland ha noolaato dawladda Jabuuti haa dawladda Jabuutina ha noolaato kuwa imaka Jabuuti farta ku fiiqeen la leeyahay haa waxaan anagu joogi jiray Jabuuti oo la yiraahdo Baarti Lig Baburleer Afrikaan burlaadimbaadaas kolka dagaal doontiin inuu Afrikaana ma dagaxdaad cunaysiin buu noola jiray Faransiisku yaa wani waxa soo arkiinoo ka dambeeyay kolkii loo halgamayay gobonimada nin ka dambeeyo
dabadii dhashay weeyaan ninka Jabuuti xaggeegaaba waxaan ku sheegay ma aha markii ugu horeysay ka hadlaan dadka ku dhaqan deegaanada lixda gobol ee xayiraadda ku soo rogtay xukuumadda Soomaaliland waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhagadalool TV-ga caalamiga Ariel TV magaalada Sayla